maraykanka ayaa hadda waxaa soo baxday macluumaad cusub oo mid ka mid ah wargeysada ugu afka dheer waddanka maraykanka uu baahiyey kadib muddo dheer oo baaritaan iyo dabagal uu ku hayay sida maraykanku uu ugu fashilmay iskuday uu ku doonayay inuu kula socdo kuna dhegaysto kuna kormeero dhaqaaqii nuclearka ee shiinuhu uu waday arrintaasi ceeb ayaa ka dhacday iyo weliba guuldarro ma ahan oo keliya ciddii gacan ka geysatay arrintaasi maraykanka oo hindiya ayaa qayb ka ahayd haddaba sidee wax u dhaceen muxuu ahaa mashruucii fashilmay lixdamaadkii ee maraykanku uu ku guuldaraystay la socodka iyo dabagalka hanaankii shiinuhu uu ku dhisayey barnaamijkiisa nuclearka xog amuurtaasi la xiriirta ayaan barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bila wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimriyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Altaqwa ayaa ku samaysay qiimo dhimis waxa lagu soo duubayaa muuqaal ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umrah nambarka shaashada kaaga muuqda Somali Meat Company hilib saafiyo sugan oo la hubo waa Somali Meat Company Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya waxaana ay ku howlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyay soona maray baaritaano caafimaad oo guuleystay waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika iyadoo leh qaybaha warshada hilibka geela warshada hilibka looda warshada hilibka ariga iyo warshada lafa bixinta hilibka waxaana ka howlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyay soona maray baaritaano caafimaad Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika khaliijka dhawaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Halal Certificate iyo ISO Certificate shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda maxamed cadde oo macluumaadkan soo ururiyay ayaa qadka ku jira maxamed xogtan wargeyska New York Times xageebo ka soo xigtay maxay tahay macluumaadka uu soo bandhigay baaritaan dheer uu sameeyay wargeyskan la yiraahdo The New York Times ayaa dabool ka qaaday mid kamid ah arrimihii ugu sirta adkaa uguna qatarsanaa ee xagga basaasnimada iyo howlgallada basaasnimada la xiriirta dagaalkii qaboobaa inay lug ku yeesheen Maraykanka iyo Hindiya oo iska kaashanayay bartamihii lixdameeyadii in ay geeyaan maxado lagu dhageysto agabka nuclearka ee waddanka Shiinaha ayaga oo buurta la yiraahdo Nanda Devi ku taala buraha Himalaya dusheeda rabay inay dhigtaan motor korontada laga dhaliyo ee nuclear ku shaqeeya oo loogu talagalay in lagu dhageysto gantaalada Shiinuhu ay tijaabinayaan nuclearka iyo barnaamijka nuclearka markii ugu horeysay ay Shiinuhu bilaabayeen in ay tijaabiyaan hubka nuclearka sirtan buurtan Himalaya ku taala Nanda Devi la yiraahdo howlgalkeeda ayaa la ambaqaaday 1965 iyadoo Maraykanku uu walwal weyn ka qabay Shiinaha sidoo u dardargelinayo inuu hub nuclear samaysto iyo dawladda Maraykanka inay awood u lahayn ama in ay dhaxsho gasho ciidamada sirta ee waddanka Shiinaha ciidanka sirta ee waddanka Maraykanka CIA-da ayaa ku doodaya in buuraha Himalaya oo aad iyo aad u sareeya ay noqon karaan meel munaasab ku ah in la dhigto raadiyaal lagu basaasi karo gantaalada ballistikada ee Shiinuhu tijaabinayaan waa gartay arinta xiisaha leh ee wargeyska uu wax ka qoray waxa kamid ah dadkii arintan ku lugta lahaa ee ka shaqeynaya hawshan inaysan ahayn dad loo arki karo inay yihiin sirdoon laakiin si kale ku gambaday maxay arintaasi tahay guusha howlgalkani waxa ay ku xirnayd arrin muhiim ah oo ah in motor konton rodol ah oo nuclear ah oo la qaadi karo
in buurta dusheeda la saaro si koronto joogta ay u helaan isla markaasna waxaa ku jiray baa leedahay plutonium ayaa ku jiray oo ah waxyaabaha shucaaca bixiya matoorkan ayaa muhiim ahaa in la xaqiiqsado in ay xarun wax lagu basaaso koronto lagu siiyo iyadoo qabowga meeshaasi ka jirana buuraha Himalaya uu yahay mid muddo dheer socda waxaana lagu qiyaasayay plutoniumka ku jiray inuu ahaa 3 qaybood marka loo qaybiyo bamkii lagu dhuftay magaalada Nagasaki wadanka Japan 9 August 1945 dagaalkii labada adduunka markuu dhamaanayay bamkaasi culeyskiisa 3 markii loo qaybay qayb ahaan plutonium la-eg ayaa uu ka koobnaa matoorkani si loo qariyo ayaa waxaa la isticmaalay sheeko lasoo mala awaalay oo ah nin sawirro ka qaada arrimaha dabeecadda oo la yiraahdo Barry Bishop ayaa waxa uu iska dhigay inuu howlgal scientifiga ama cilmi baaris sayniska ah inuu ka qabanayo deegaankaasi oo laga goleeyahay in la barto jawiga buuraha Himalaya laakiin arrintaasi waxaa ku hoos qarsanaa basaasnimo. waa gartay marka ujeedada dhabta ah ee Mareykanka maxay ahaayeen ninkan sawir qaadaha ah ee Bishop la yiraahdo ayaa u sheegay madaxa ciidamada cirka wadanka Mareykanka General Curtis LeMay oo ahaa nin dagaal jecel isla markaasna ah naqshadeeye barnaamijka nuclearka Mareykanka istiraatiijiyadiisa in aragtida laga qabo meesha ugu sareysa ee buuraha Himalaya oo 100 mayl ah ay u dhaxayso Shiinaha iyo dhulka Shiinaha uu gacanta ku haya ee Tibet in la dhigo wax u muuqda in ay yihiin buurta la yiraahdo Nanda Devi oo ah meesha ugu sareysa agab sir ah wax lagu basaaso howlgalkaasi ayaa lagula soconayaa bay'adaasi cidlada cirsadada ee qabowga badan leh oo aanan ilo kale oo awood iyo koronto lagu dhalin kara ayna jirin in la geeyo matoorkan nuclear ku shaqeynaya ee la qaadi karo plutoniumka loo doortay howlgalkaasi ayaa waxaa ka shaqeeyay basaasiinta Mareykanka oo la kaashanaya basaasiinta wadanka Hindiya waxayna u baahnayd arrintaasi in si weyn sirtaasi loo qariyo dowladda Mareykanka iyo Hindiya ayaa dardar geliyay walwalka ay ka qabaan in Shiinaha awoodiisa nuclearka ay sii balaaranayso markii uu qarax sameeyay bamkii ugu horeeyay nucleara 1964 waa gartay marka doorka Hindiya muxuu ahaa ilaa intee leeg buu ahaa dadaaladan basaasnimada la adeegsanayo ayaa waxaa ka wada shaqeeyay oo qorshe geesinimo ah oo la dhigayo xarun basaasnimo meesha ugu sareysa buurta Nanda Devi ayaa wadanka Hindiya ayaa waxaa ka shaqeeyay ciidamada sirta howlgalkaasi ayaa waxaa madax ka ahaa Hindiya gudaheeda ka dhacayay nin kabtan ah MS Kohli la yiraahdo oo ciidanka badda ee Mareykanka ka tirsanaa khibrad badan u lahaa sida buuraha loo karo iyo ninkan sawir qaadaha Bishop oo asaga laftirkiisa door muhiim ah ka ciyaaray in la isku dubarido soo ururinta dad buuraha kora oo la shaqeeya ciidamada sirta ee Mareykanka iyo Hindiya iyadoo lagu gabanayo cilmi baaris science in la sameynayo oo bay'ada waxtar u leh taa bedelkeedii dhowr digniin ayaa soo baxay oo hawsha dhibaato weyn ayaa lagala kulmay iyo khatar weyn buurahaas marka la fiiriyo howlgalkaasi ayaa
dhulka lagu shaqaynayo iyo hawada ayaa labadaba dhib badan. Oktoobar 16 1965 kooxdii hawshaasi ka shaqaynaysa ayaa isku dayday inay qalab culus geeyaan uu ka mid yahay matoorkan nuclearka ku shaqaynaya oo ay ku jiraan waxyaabo sun ah in buurta meesha ugu sarreysa la gaarsiiyo. waa gartay haddii marka qalabkii meesha la geeyey oo lagu rakabay maxaa dhacay marka ma lagu guuleystay dantii laga lahaa ee ahaa kormeerka iyo la socodka iyo dabagalka qorshaha shiinaha ee nuclearka? buurihii Himalaya markii la tegey duufaan baraf wadata oo aanan loo adkeysan karaynin, daal iyo cudurro laga qaado markii meel aad u sarreyso la fuulo ayaa caqabad noqday oo keenay inay dib u soo noqdaan kooxdii hawshan ka shaqaynaysay ka hor inta aanan maxadadii loogu talagalay in la rakibo aan la rakibin, sababtoo waa la gaari waayey meesha. go'aan ayaa la qaatay ku meel gaar ah in matoorkii korontada dhalin lahaa ee nuclear ka samaysnaa in looga soo tago buuraha dhexdooda laguna ka tiinadeeyo buuraha meel ka mid a ayagoo ku rajo weynaa in ay xilliga labaad usoo noqonayaan. markii ay soo noqotay xilligii guga 1966 ay la yaabeen inay arkaan matoorkii oo meesha ka maqan gebi ahaanba. waxay is yiraahdeen buuraha soo barjabay ayaa hore u qaatay oo barafka raaciyey kadibna dhalaaliyey kuna daray biyaha webiga weyn ay Hindidu barakaysatay ee Ganges la yiraahdo biyihiisa ku daray. markii la waayey matoorkii nuclearka ahaa waxaa hadda timid marka arrimo amni iyo arrimo bay'o oo laga yaabo in sun badan ay ku fakato biyaha, maxaa yeelay plutoniumka ayaa waxa uu ka koobnaa shucaacyo sumayn karaya biyaha loo isticmaali karo waxa lagu tilmaamo bam wasaq ah ama qarax wasaq ah. way arrintaas markii dhacday gudaha Mareykanka iyo Hindiya waxaa ka dhacay walbahaar iyo walwal. muxuu wargeyska arrintaasi ku sheegay? cabsi la aamusan yahay ayaa soo wajahday xukuumadaha Mareykanka iyo Hindiya, waxayna dhalisay in ay baaritaan dheer oo qarsoodiya sameeyaan oo ay ka qayb qaateen militariga iyo dad buuraha kora iyo qabiiro xagga shucaaciyada ah. dadaaladaas oo dhan waa fashilmeen marka la fiiriyo dabeecadda buuraha Himalaya iyo meel la isku halayn karo lama arko, iyo buuraha oo bardumaya. waxaa halkaas ayadana ka dhacay khasaare weyn oo diblomaasiyadeed marka la fiiriyo in dukumentiyaashii oo dhan la qariyey lana xabaalay, ka qaybgalayaashiina ay ka hor istaageen ama dadkii hawshaasi ka qayb galay laga hor istaagay inay hadlaan, halka agagaarka buuraha Nanda Devi ee Himalaya sanado badan la xiray sababo la xiriira bay'ada wax la xiriira oo loogu marsooday. marka laga gudbo in lagu guuldareystay hawshii, Hindiya iyo Mareykanka ciidamadooda sirta ayaa sii waday inay iskaashadaan oo ay matoor kale ayagana ay meeshaasi geeyaan oo nuclear ka samaysan oo ay dhigaan meel buurtii ay rabeen korkeeda inay dhigaan meel ka hooseysa 1967 ayadana waxaa lala kulmay dhibaatooyinkii hore oo kale. fooda ayaa la gelin waayay qabowga, dhaxanta, duufaanta buuraha barafka ee barjabaya. markii la gaaray bartamihii 1970 ayaa qaabkii la isticmaalayay wuxuu noqday mid aan suuro gelinaynin in wax lagu basaasi karo. waxaana soo baxay satellite-yada ama ciribxiyeenada basaaska ah. hawshii la wada dhan halkaas ku ekaatay. waa gartay marka maxay talaabooyin qaadeen dawladihii Hindiya iyo Mareykanka xilligaas? muxuuse ahaa walaaca ugu weyn ee ay qabeen?
muddo 10 sano ayaa laga aamusnaa sirta la xiriirta matoorkan nuclearka ee dhumay ilaa iyo nin suxufi ah oo Howard Cohn la yiraahdo 1978 dabool ka qaaday macluumaadkaas soo baxay ayaa dhaliyay dood caalami ah waddanka Hindiya dhexdeeda halkaas oo xukuumadda Hindiya ay u yeertay safiirkii Mareykanka mudaharaadyo xoog leh oo lagu cambaareynayo ciidamada sirta ee Mareykanka ayaa Hindiya ka dhacay waxay noqotay arrin fadeexad weyn mudaharaadyadaasna waxaa lagu muujinayay walaacyada waaweyn ee laga qabo waxyeelada bey'ada soo gaari karta gaar ahaan buurta Nanda Devi ee Himalaya ku taala iyo biyaha ka soo rugumada oo ku biira webiga ay Hindida barakeystaan ee Ganges waxaana uu muhiim u yahay 100 milyan oo Hindi ah webigaasi inkastii madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Jimmy Carter uu ballan qaaday inuu iskaashi buuxa la yeelanayo Hindiya haddana labada xukuumadood ayaa ka aamusay arrintan kadib markii ay isla qaateen siyaasad ah inaan laga hadlin arrimo sireed Hindiya ninkii markaasi ra'iisul wasaaraha u ahaan jiray Morarji Desai ayaa abuuray guddi khabiiraa oo baara hawshaasi wax wasaqayn shucaac nuclearana markaasi lama arag waxaana digniin lagu bixiyey in berihii lagu xiray ama ku qafilnaa motoorkaasi laga yaabo inay daxaliistaan oo ay burburaan mustaqbalkana laga yaabo in ay sun ku sii daayaan webiga taa waxaa daba gashay Hindiya oo sii waday in ay sanad walba si qarsoodi ah u baarto deegaanadii hawshaas ay ka dhacday ilaa sanadkii 2000 laga soo gaarayay markaasoo la joojiyey baaritaankii iyo la socoshadii nuclearkii meeshaasi ku dhumay maadaama hawshan ay dhib badatay lacag badanna ay ku baxday heerka sumaynta ee la ogaadana wax isbedelo weyn laguma arag 10 sano ka bacdi markii laga soo wareegay ayaa waxaa dhalaalay buurihii barafka uu fadhin jiray sababa la xiriira cimilada isbedeshay waxaana muuqata in hadda la soo cusboonaysiiyey cabsidii laga qabo motoorkii nuclearka ah ee korontada lagu shideeyey laga yaabo inuu sin soo daayo plutoniumka hadday biyaha galaana waxaa laga yaabaa inaanan weli markhaati cad loo haysan inay wax sumeyna geysteen waa gartay haddii marka arrintaasi ay dhacdo maxaa ka dhalan karaa cawaaqibka arrintaasi ay yeelan kartaa dad iyo dunya maxaa laga sheegay waxaa weli weyn laga qabaa in barafkii dul saarnaa buurahaasi in laga yaabo inuu si dhaqsa u dhalaalo natiijada waxa weeye cimilada isbedelaysa oo laga yaabo in ay soo bixiso arrintii motoorkii nuclearka ee lumay ama labadii motoor ee dhumay waxay ku xirnaayeen sanduuq aad u adag sanduuqaas ayaa laga yaabaa inuu burburo wuxuuna khatar weyn gelin karaa in uu sii daayo sunta ku jirta waxay suntaasi dhalin kartaa kansarka ku dhaca beerka kelyaha iyo lafaha xataa waxa ay khatar gelin kartaa in laga samaysto bam wasakh ah oo waxyeello weyn geysta baaritaankii ayaa lagu soo gebagabeeyey in buuraha Nanda Devi arrinteeda ay noqotay mid taariikh weyn reebta go'aankaasi xilligii dagaalka qaboobaa cawaaqibka ka dhashana weli waxa uu socdaa in ay hor taagan tahay ilaa iyo maantada la joogo oo aan jawaab saxa loo haynin jawaabta cudunta ah xaggee ku dambeeyey motoorkii nuclearka ahaa ee buurahaasi la geeyey ee labada ahaa cid ka jawaabi karta su-aashaas lama arko
waya maxamed si kooban marka hadaynu intaa kaga baxana warbixinta wargeyska oo qoray maxay ka turjumaysaa marka arrintan iyo fashilka Mareykanka ka qabsaday inuu la socdo shiinaha nuclear-ku samaysanaya mid kale maxay tahay sababta baaritaankaas iyo dabagalkaas intaas waqti u bixiyay oo halistaan ilaa hadda maanta taagan loo galay maxay tahay sababta adduunka ayaa isbedelaya waxa muuqata dowladda Mareykanka iyo ciidamadeeda sirta inay waxyaabo far badan caalamka ka geysteen meelaha qaar waxa lagu eedeeyaa dowladda Mareykanka ciidamadeeda sirta inay xukuumado badan xukun ka tuureen in ay ka shaqeeyeen mu'aamarado fara badan waa mid ka mid ah mu'aamaradihii qarsoonaa oo wargeyska The New York Times oo dabool ka qaadayo waxa ay ku keenaysaa wajigoodaxnimo dowladda Mareykanka iyo ciidamadeeda sirta waxaana muuqata caalamka maanta jira inuu ka duwan yahay caalamkii hore oo waxay rabaan reer galbeedku ay samayn jireen hadda waxaa soo baxay aqoonta markay noqoto xagga farsamada markay noqoto xagga sayniska markay noqoto in Ruushka Hindiya Iran aan la yareysan karinin Iran oo kaliya sanadkan waxaa jaamacadda injineeriga ka qalin jabiyay in ka badan 200 oo kun oo injineer Mareykanka iyo wadamada reer Yurubna ayay gaabis uga yihiin aqoonta xagga sayniska oo waliba horumarkii ay ku tilaabsadeen wixii laga soo bilaabo gacaankii warshadaha 1870 ilaa 1970 hadda waxaad moodaa wax isbedelo weyn inay sameeyeen laga soo bilaabo 1970 ilaa waqtigan hadda la joogo aqoontii aqligii farsamadii in ay ka guurtay wadamada reer galbeedka ay u guurtay meel kale hadda aqoonta irbixiyeennada iyo hawada sare waxaa hadda horseedka ah Ruushka number 1 ah ama numberka koowaad ah Shiinaha ayaa dardar xoog leh ku socda Mareykanka iyo reer galbeedka waxay maareen waayeen inay sameystaan gantaal guuxa ka dheereeya oo muddo dheer isku dayeen marka adduunyadu way isbedelaysaa isbedel xoog leh ayaa socda badeecadaha saan oo kale ana waxa ay si xumeynayaan sumcadda iyo meeqaamka dawladahaas ay sheegan jireen waad ogtahay waxa fashilmay meeqaamkii ay sheegan jireen xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta bini'aadamka iyo xuquuqdiisa marinka Gaza ayaa ka shifay haddana waxa kale oo fashilmay bay'ada wixii ay ka sheegi jireen in la ilaaliyo inay bay'ada wasaqeeyaan oo ay ka dhumaan agabkii ay ku shaqeynayeen ayadana waa fadeexad weyn oo muddo dheer taagnaan doonta haddii alaabtaasi luntay nuclear-ka ay ku baahdo dhul ballaaran ama webiga raacdo oo cudurro badan ay dhaliso waxay noqonaysaa mid caalamka oo dhan uu ku eedeyn doono dadkii ka shaqeeyay hawshaasi وهجاك محمد عبد الله محسن تاي داود ياشوني محسيه هنا تاي كسو جبجبيننا برنامجك داود سي عاد ولا سocto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino hadii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgeli American International High School iyo faraca Nairobi haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta kamaal American International High School American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaareynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkana wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online baryahan ubadkaagu halkay baafinayeen oo baahi ay u qabeen ayaan soo bandhigayaa bisharada niga hooya oo diinta bilan iyo barashada qur'aankaba ku barbaaray carruurta hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo kamid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa
caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 ku soo dhowow Safari Remit warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku warramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo weliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. Macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda. Isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safaririmit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK, mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud, baahi tiraha baahi loo qabay. Safari Remit